عليكم ورحمة الله وبركاته. سوماليا وإذن سلامية وولاشين نعيما نالكا وإذن لسود وهذا مركلا إيو فيديو هرلي تان حال إذن شيغي وحا إذن كدهاي فيديو every night وصوته بيا إن شاء الله تعالى أدي لا يرحل فيديو عصب نيو فيديو نيو maaragtay muxuu ahaa system new program laakiin caawa waxay ku saabsan tahay qiso aan igu dhacday. qisadana caawaan bilaabayaa. xaqiiqatan waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan nafta bini aadanka ina been u sheegin. ibni aadan naftiina been ha u sheegin intaan nooshihiin. wax la yiraahdo mataqaanaa waan yacni ma weelo waxa la dhaho iska indhatira. wallaahi xaqiiqadii runtii ilaahay baa jecel. waxaan rabaa inaan ka hadlo qiso yar igu dhacda ani mana yara xaggayga markii la fiiriyo laakiin qiso maalinba in yar baa rabaa inaan soo duubo insha allah. caawana waan bilaabayaa marka mana hayn karo intaa ka badan. calooshayda kuma haynin karo waayo dadka waxaan ku jiraa aan caloosha waxba ku haysan karin. anoo calooshayda wax iga buuxaan inaan dhintana ma rabo, ama ha dhawaato ama ha fogaato. ilaah waxaan ka baryayaa cimri dheer iyo cibaado suuban inuu isiiyo. ummadda kalena waxaan leeyahay ilaahay idinkana dhibaatooyinka idinka dulqaado. run ahaantii markaa tahay qof Soomaali ah maskaxdaada waxaa kusoo dhacaya waxyaalo badan runtii. marmarka qaar waxaan isweydiiyaa Soomaalida ma dhagaxba, ma jaahilinba, ma cawaanba. macnaha dadka adduunka maanta dad waxaa jooga weli adduunkana ku nool dunida aynu ku noolnahay cawaan ah oo laakiin diin leh oo haddana cawaan ah ayaa maanta dunida ku nool. waana dad muslin ah waxaa boqolkiiba boqolna diinta islaamka haysta. mararka qaar markaa fiirso xasdhiis dadkan may waalan yihiin mise waa cawaan. ma waalna waa jaahiliin waana cawaamiin. marka dadka sidaa ula jeedaa Soomaali maxamed waxa weeye qiyaali ku nool ayaa tihiin. intaad adduunyo joogtaan qiyaali iyo maaweelo iyo mala awaa iyo waxaan loo joogin riyo aada gaari karin baad ku jirtiin habeeni maalin waxyaalahaasad ku riyaanayseen. anyway qisadeeda waxay ka kooban tahay ayaan rabaa inaan idin sheego. bismillaahi raxmaani raxiim. magaca ilaahay ayaan ku bilaabayaa naxariista leh ee naxariista guud tan islaamka iyo tan caalamkaba. haddaan qalday allah ii dambi dhaafo. intaa ka sokow waxaa rabaa aniga waxaanahay gabar Soomaaliya ku dhalatay. gobolada ku dhashayna ma sheegayo. anoo yar baan kasoo qaxnay Soomaaliya. waxaan imaanay kenyaan imaanay 1991. Soomaaliya weligay iskuulka ma dhiganin. markii aan soo qaxaynay xanaanada ciyaalka ayaan ku jirnay aniga iyo gabdhaha dariskayga ee aan isla soo dhoofnay dariska ahaan jirnay ee aan isla ciyaari jirnay. xanaanada xataa waxaan ka xasuustaa heesa naloo qaadi jiray. shimbiryaalow heesa 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 hees wanaagsan heesa kalaya hortayda halkan soo fariista. heesta ayaan ka xasuustaa oo waddankaygii laygu baray. wixii intaa ka dambeeyey waxba kama garanayo. waa soo qaxnay
weliba qeexi markaan soo cararayna gabar aniga ka mid ahayd asxaabteyda ayadana meesha iyada ordaysa dhamatay xabad baa ku dhacday anigana ma aqaano waxaa arkay gabadhii oo dhiig ka da-ayo dhiig baa ka dareeraya aada u badan ayadiina dhulka ku dhacday gabadhi waxaa la dhaha yaasmiin walaa waa jeclaa waxaan dhihi jira yaasmiinay kac baan dhahay yaasmiinay kac waxaan isku dayay inaan kiciyey gabadhii gacmaha markaan qabtay oon kor qaaday gabadhii baaba iska dhacaysaaba qof anna ma garanayo weligay qof dhintayna ma arkay maalintaa ka hor qof ma aragtay naftu ka baxdayna ma arkeen ilmo yar baa isla nahay xanaanooyinka ayaan aadi jirnay oo nala geyn jiray weliba annaga maan iska aadi jirin hooyooyinkeen baa na geyn jiray markii duhurka la gaarana waan kasoo bixi jirnay xanaanada mise casirka ma aqaano adigu markay cadceeda kululaataan soo bixi jirnay nala keeni jiro guryaheena annaga marka xanaanadana waxaa nalagu siin jiray alaabiyaan ku ciyaarno toyga ama meelahan ku aragno baan ku ciyaari jirnay marka xanaanada joogno gabadha horta ilaah u naxariisto ilmo yarnaba ahayd aada baan u yaryaran foodley baan ahayn dhiiqadaa ku ciyaari jirnay muxuu ahaa waa iska ordi jirnay xaafadaha dariskaa u wareegeynaa marba xaafad baa iska aadaynay webigaan aadi jirnay xataa meeshaan deganin webi buu lahaa webigaan iska aadi jirnay banaankiisaan fariisanaynaa dadka iska daadaawanayna waayo awood aan webiga ku galna ma haysano ilmo yaryar baan ahayn marka ayadoo xilliga ay saas noo tahay oo xaaladda meel fiican noo marayso oo maaragtay gabdhihii aan markaas ilaa amarkii saaxiibo noqonay bulow noo yahay ma aqaano intii ka horeysay saaxiibna malayn waxbana maana ahayn markaa baan u malayna inaaba socod iyo cagab socod barad baaba ahaa macnaha markaasaaba adiga nolosha bilow ii ahayd inaan gabdho la saaxiibo darisnahay oo isla ciyaarna alaabey marna waa isdagaalaynaa marna maxay ahayd xanaanada isku arkaynaa ayadoo arrinta sidaa tahay yaasmiin baa la dilay xabad baa ku dhacday yaasmiin dhiig badan baa ka da-ay wayna ordaysa gabadha guriga hooyadeed ba u socotay ayada u socota halkan uga dhacda xabadii anigana iyadana way iga horimaatay waan soo ordayaa waayo waxaan weligay maqlin baa maqlaa dhow dhug bow baa maqlaynay markaasaa baalbanba dhow iska dhahaya bismillah xabada kale nooca dhacaya gabadhaas hataa xabadaha ma aqaana meel uga timid adigu halkan baa dhug intii halkan wax uga dhacay bay gabadhii xoog u dhacday gadaalba cabaar meel fog bay ku dhacday oo gadaal u dhacday markaasay madaxa dhulka ku dhifatay gabadhii isla markiiba dhulkiibaa dhiig wada noqday anigana xoog baan soo orday iyadii baan ku leexda maba dhaafinba gabadhii markaa arkay inay ma aragtay ka caynin baan leexda hooyadeed gurigoodaan tegay hooyadeed baa u tegay waxaan dhahay hooyadeed sahraa la dhahayay gabadha hooyadeed maama sahraa eedi sahra gabadhaadi dhiigaa ka socdo dhiig baa garanayaa gabadhaadi dhiigaa ka socdo aawa i tiray kaalay tus wataa banaanka bas banaankii baan tusay meeshii gabadhii ay ku dhacday markii dambe maamadii gabadheedi waa aragtay markay aragtay maaqaana way oyday si xun bay u oyday maamada halkaa gabaray ka haysatay wax ilmo ah gabadhaa keliya dhashay ilmo kalmay lahayn aabaheed ma aqaana moo dhintaa ma garanayo wallaahi aabaheed weligay ma arkin adigu ugu dambeyn way oyday islaantiisa wuu ooyeysay ayadoo oynaysaan ka imid ani gabadhii iyadoo dhiig lasoo qaatay dhabta saaratay ay meesha wadada la fariisatay ooyeysaan u imid bas waa anna waan kasoo tegay markiiba waxay i tirinaa kac hooyadaa u tagnaa orod bax gurigiina aad orod xabadda ka car xabadda ereyga xabad la dhahaba markaas ay igu horeysa maamada ah allama aqaana meel ugu dambeysay gabadheeda markay ka dhimatay adi markii dambe waan soo baxay waxaan imid
gurigeena waxaaba imid aabahay alla u naxariisto oo alaabtii guriga yaale kala guray oo anaga dhanna wado wuuna soo kaxeeyey. hooyana way maqnayd, adeeg bay jirtay, walaaladeyna way kala maqnaayeen, maaqaana meelay jireen, maskuul bay jireen, ma garanayo. adigu ani iyo gabar iga yar alla u naxariisto iyo gabadhi reerka u yarayd guriga u yarayd oo maamo dariskeena haysay oo aabba u keentay. 3 baan ahayn iyo aabahay baa meeshaan ku sugnay. hooyo ortaysaa timid caano iyo hilib iyo qudaar wado. sankor baa noo taalay, sankor oo madoow weli inta kuma arkay sonkortaas ayada bac yaryar ku jirtaa arkay. sonkorta magaceeda waxaa la dhahayay mareere, labaa xasuusta, mareere baa la dhihi jiray. sonkorta iyo bur loora iyo bariis iyo galley iyo digir iyo adduun iyo shamuure waxunbaa meesha lasoo dhigay. meeluu ka keena ma aqaano. hal marin buu sababada dhiga banaanka usoo jiiday. wuxuu aabbaha la naxariisto soo bixiyey iyo dhar maaragtay sanduuqyo ku jiraan wuu soo wada bixiyey. joodari wuu soo bixiyey. joodari maa lasoo qaadi karaa talow inuu joodari soo bixiyey. bas maalintii dambe gaari weyn baa imaada. nin adeerkay unu noolya in kale ma ogo. adeerna hooy tiri waa adeerkiin, adeer buu idin ahaan jiray. mar dambe oona qaxootiyada imaanay baan weydiiyey ay nagu tiri adeerkiin buu ahaa ninkii waxay gaarigii adeerka markaan soo raaci jirnay wixii maalintii aan aragnay adeer hebel gaarigiisa markaan saarnayn wixii aan soo aragnay macnaha waxbay noo tilmaami jirta. marka saase ku ogaada adeer inuu noo yahay odaygaas. aabbana alla u naxariisto wuu naga haray, wuxuu nooga haray isla tuuladii maaragtay aan kasoo qaxaynay wuu nooga haray. maalintii dambe gaarigii markii hooyo timid ay walaalo yimaadeen aamin dambe oo dadkii kala qaxeen ayay yimaadeen. iisheeg walaaladay gaariga xamuunka jiidka la dhaho ayuu adeerkay watay. gaarigaasaa guriga la hordhigay oo dad badan saaran yihiin, alaab badanna ay saaran yihiin. marka gaarigii baa nala soo saaray saa u soo soconay. gaariguna soo wada aabbana meesha buu ku haray. bas markii dambe gaarigiisuu noo soo waday wuxuuna keenay meel la dhaho jilib buuna keenay. iyo maya tuulo ka horeyso jilib ma aqaana, mareere miyaa meel kale miyaa ma garanay oo webile oo meel walba waxaa soo ooday geedo badan oo qudaarka buuxa. cambe ka mid yahay, babaay baa ku yaala, geedaha isheeg qaraha dhulka yaala laakiin oo dhulka jiifan wax taagan ma ahayn. geedaha tagtaagan cambe iyo waxaa u badnaa babaay iyo liin macaan iyo liin dhanaan saytuun waxaasa arkaya. maasha allah soomaaliya barwaaqaa taala wallaahi. bas geedahaas webigaas 3diisa gees bay uga yaalaan. hawd camal buu ahaa mugdi habeenaan soo galnay laakiin nalal baa ka shinaa. magaalo ahayd nalal buu leeyahay. weligeebaa nalal aan arkaba maalintaas magaaladaas igu wareysay. meeshaan kasoo qaxna nal dhamma lahayn. baadiyana ahayd inay tuulo ahayd ma aqaano. bas adi markii dambe waxa dhacday webigii baan soo gudubnay, waan soo goynay buundadii. meeshii baa iskuulaad baa nala dejiyey oo ay dowladda leedahay ardayda wax lagu bari jiray. annagoo dhan macal dad kale naga soo horeeyey. horta intaanan soo gaarin buuntadaas iyo meelahaas iyo tuulada waxaan aragnay dad niman wadada u oodan tahay. niman ay wadada u oodan tahay baa meesha xiray. wadadii bay xireen. markaasaa ma aqaano niman baa marmay. annagana gaarigaa saarana ilaahay baa og si u dheeryahay waxba ma aragno.
waxaama fiirin karna halka maraan isdhaha soo istaag armaajooyin miyaa mise sanduuqyo la iskor saarsaaray maan ku istaagayaa war jacayl waxaan ka qabo waxaan isku dayayaa intaa inaan ogaado waxa meesha ka dhacaya muran baa maqlaa waa la murmayaa balaabalaa warkantaa maaha saameeye kana maye ka leexa wallaahi inaana yeelanaysa muran baaba ka socda meesha waaba xawli ah haddana gaari kala imaada ku kala imaada markaasaa nin wuxuu leeyahay waryaa joogso carar soo gal istaag carar soo dhaaf markaasaa wallaahi haddaad diido xabadaan kuugu furayaa anu wixii baa daawanaya markaasuu midkii hanjabaya xabad buu furo dhowdhowdhowdhowdhowdhow bismillaahi raxmaani raxiim wallaahi isla gaarigii uu u hanjabiyu ku dhacay xabadda ku dhacday ma aqaana ilaa 10 xaba wuu riday baashi dhawaaq kululaa alla maalintaas dhagaha i xanuune soomaaliyay aakhiri adduun waa idiin haystaa madax xanuunka igu rideen dhulka intaa iga soo qaxiseen oo xabadihii sas baan ka qaaday madaxii baa i xanuune muxuu ahaa indhihii baa iyo ololay haraad baan dareemay gaajaan dareemay muxuu ahaa masquul ma haysano waxba meel ma aadi karno cabsi waxaa kaaga daran gaari waxaa nala saaran nin dhaawaca oo xabad kusoo dhaceen baa nala saarnaa oosuu dhiigga uga socday ilaahay baan ku dhaartay dhiiggiisuu uga socday yaa ma aqaana ninkii markii dambe meesha ku naf baxay iyo horta istakfirla inuu naf baxay inay aan muxuu ahaa nool yahay allahu aclam laakiin ninkaa wuu sooxa runtii si markaasaa haweenka dhan garbasaarahay qabaan intay soo wada bixiyeen kuntuunooyin bay qabeenay ay lugta uga dhacday bawdada ka xireen way uga xireen lugta haddana mara kale ku xireen dhiig maba istaagayaba joodarga dhan baa dhiig noqday uu ku jiifay ninkaa markaasuu leeyahay biyo isiiya alla ilan qofka xabadada ku dhacdo waa dhibaato biyo hala isiiyo alla biyo isiiya buu leeyahay adi marka qofaa nala socdo dad baa nala socday isagana qaas u ilaalinayeen dadki waxay dhaheen lama siinayo ma siin kartaan maamooyinkana waa calool jilicsan yihiin waxay isku dayeen inay biyaha siiyaan biyihii waa loo diiday ha siinin haldha haddaa siiso wuu dhimanayaa markaasay islaamiiska ooyeen sakaraad nafti baa qabata ha siinina layiraha siinina hadda nafta idinku waxaad isleediina caawiyo laakiin wuu dhimanaya haddaad siisaan biyaha horta taas ma ogi qofka biniaadanka biyo haddii la siiyo inuu dhimana in kale uma malaynayo laakiin aqooni ma qabo anyway saa usoo soconay nimankii islaynayay waxa weeye markii dambe way heshiiyeen oodiba naga qaadan ood xataa maaha foostooyin bay dhigeen irida foostooyinka gaaska bay saa u dhigeen wadadii lacag baa dadkii lagu soo deynaya lacag laaluush miyaa ma garanaya waa la ganaaxa anyway dadkii lacagta intaa keena markaasaa dadkii gaariga saaranayo dhan lacagta keena lacag haddaa haysan keena ilaa darawalka maayo lacag bas ugu dambeyn waa lagu guuleystay gaariyada dhan waa lasoo fasaxay lacagti waa la siiyey waan soo degna anagoo gaajo naflanahay ma aqaana meeqa beriyaan soo socono talow anigu waxba ma garanayni aada baanu yaraa runtii laakiin waxyaalaha dhacaya waan xasuustaa iyo wixii nolosheeda iga soo mara qixi dhibaatada aan kala soo kulmay maalinta gurigii hooyada iyo aabbahay ay igu dhaleen la iga soo saaray ilaa haddaba idaba socota soomaaliya waxaa u malaynayaa ilaa wadanka uu nasto dadkii u dhashay xataa ma nasanayaan maskaxiyan intaasaan kusoo gebagabeynayaa qisadeydina waa taas insha allahu tacaalaa intaa ka badan inaan sheego ma rabo oo sii dheerayo 20 daqiiqo wax yaraa ka dhiman sekano ayaa ka dhiman waa inuu kulan dambe habeen dambe soo galaya insha allahu tacaalaa oo haddii ilaahay naftan nagu simo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qisada way soconi ilaa imaatiinka maraykan ilaa iyo kanada waan wadayaa biidnillah kariim salaamu calaykum waxaan idin leeyahay share iyo like iyo subscribe ii saara Soomaaliya